waxay ahayd haweeneyda ugu quruxda badan Turkiga. Waxa uu ku dhacay jacaylkeeda jilaagan caanka ahi. Waxa uu ka dalbaday guur, balse dhammaan dadkii ayaa iyada uga digay ninkan inuu nolosheeda u rogi doono mid jaxiimo ah. Waxaa ka soo muuqday korkeeda murugo, markaasay ka fidiyeen dacaayado xunxun oo yaab leh. Ma rumaysan kartid waxa ku dhacay iyada iyo waxa uu ku sameeyay ninkeedu guurkooda kadib. Borak ayaa maalin waxaa laga codsaday inuu matalo musalsal Turki ah isaga oo la matalaya gabadh jilaayad ah oo misana dhalinyar. Gabadhaas waxaa la yiraahdaa Fahriya, waxayna ahayd mid ka mid ah gabdhaha ugu quruxda badan wadanka Turkiga. Waxaana jiray malaayiin rag oo doonayay inay iyada xiriir la sameystaan. Borak waxa uu ku dhacay jacaylkeeda markii ugu horeysay ee uu indhaha ka qaado isla meeshii musalsalka lagu duubayay. Waxa uuna iska diiday inuu dareenka jacayl daaha ka qaado, waxa uuna ilaaliyay calaaqada saaxiibtinimo iyo midda wada shaqeyneed ee kala dhaxaysa. Waxa uu bilaabay inuu u soo dhawaado, waxa uuna goobayay fursad kasta oo ka yeelaysa in ay mar kale wax wada jilaan. Markii uu dhamaaday musalsalkii ayay misana mar kale wada jileen filin la yiraahdo Cishqiga ku shabaha Al-Cishqu Yushbihu. Intii filimka la matalayay, Borak ayaa ka qarin waayay dareenka jacayl ee uu hayo iyada. Waxa uuna u sheegay inuu jecel yahay uusan awoodin inuu ku noolaado adduunkan iyada la'aanteed, balse waxa kadis ku noqotay in Farhiyo iyaduna la dareen ahayd. Markaas ayuu Borak ka dareemay inuusan jirin qof isaga ka farxad badan adduunka. Waxay ahayd haweeneyda ugu quruxda badan adduunka, codkeeduna waa kii iigu dabacsanaa ee aan maqlo intii aan noolaa oo dhan. xiriirkooda jacayl waxa uu socday muddo gaaraysa 2 sano. Muddadaas Borak waxa uu ka cabsanayay in uu waayo xiriirada burburkooda ayaa iska badan. sidaasi darteed si ay ula jirto waligiis ayuu go'aansaday inuu ka dalbado guur, waana uu u soo bandhigay. Maalintii dhalashadiisu ku beegnayd ayuu u kaxeeyay xeebta, waxa uuna ku fariistay hal jilib. Waxa uuna ku yiri, indhahaygii ma iga aqbalaysaa in aad ila noolaato cimrigaaga oo idil? Ma aysan ka labalabayn in ay ugu jawaab celiso haa, indhaheeda oo ilmeynaya. Wixii intaa ka dambeeyayna saxaafadda ayaa war ka dhigatay sheekadooda, waxayna bartilmaameen xilliga uu dhacayo guurkoodu. balse markii ay maalmo ka dhimanayeen guurkooda ayaa waxaa dhacday mushkilad aan la filaynin. iyaga oo ku dhex jira meel laga cunteeyo ayaa waxaa si kadis ah u soo gashay gabadh horay ugu doonanaan jirtay Borak ay kala dhaqaajiyeen waqti hore. waxay soo fariisatay meel u dhow iyaga, markaas ayay bilowday in ay ku camirato isaga iyo gacalisadiisa, codkeeda oo aad u sareeya. ihaanooyinkaasina waxay dhaawaceen dareenka Fahriya. si degdeg ah ayayna uga baxday meheradii cuntada. Borak oo ka xun waxa meesha ka dhacay ayaa ka daba orday xabiibtiisii si degdeg ah. nasiib wanaag waxa uu ku guuleystay in uu dajiyo dareenkeeda, waxa uuna uga cudur daartay dhacdadaas foosha xun. aqalgalkoodii ayaa dhammaystirmay sidii qorshuhu ahaa, kuna soo gabagaboobay mid ka mid ah qasriyada ku yaala wadanka Turkiga. arooskoodii kadibna waxay ahaadeen jasiiradaha Maldives si ay bisha malabka halkaas ugu soo dhammaystaan. 2 sano kadib ayay Fahriya iclaamisay in ay uur leedahay. inkastoo ay aad u faraxsanayd, misana waxaa haysatay mushkilad. waxay haysatay waqtigaas oo loo soo bandhigay boosas jilniin oo aad u muhiim ugu ahaa, uguna kacayay lacag fiican. saas oo ay tahay, waxay nafta u hurtay ilmaheeda in ay muhiimada siiso. bandhigyadiina way iska celisay. xitaa waxay diiday bandhig jilniin oo lacagta ay ka faa'iideyso ay ku kacaysay $4 milyan. waxayna saxaafadda ka sheegtay in ay iska casishay wax jilista muddo waqtiyeysan oo kooban si ay u xanaanayso ilmaheeda koowaad. mararka qaarkood waxaa jira arrimo ka muhiimsan caanimo raadinta iyo daba orodka lacagta, balse jamaahiirta qaarkood ayaa ku tilmaamay go'aankeeda mid aan sax ahayn, waxayna ku tuhmeen in ay tahay jaahilad. sidoo kale waxay tuhmeen ninkeeda oo waxay yiraahdeen isaga ku qasbay inay iska casisho fanka wax jilista. sidoo kale waxay ku jeesjeeseen miisaanka jireed ee Fahriya ee ugu kordhay sida siyaadada ah markii ay dhashay kadib. waxay sawiradeeda ku dul qoreen in ay weyday quruxdeeda, guurkeeda iyo uurka kadib awgii. balse waqtigaas Borak ayaa soo baxay kana difaacay xaaskiisa dhaleecaymaha foosha xun ee gardarrada ah. waan jeclahay xaaskayga si kastoo ay noqoto, maalinba maalinta ka dambaysana eegmadeeda aad bay indhahayga ugu sii qurux badnaanaysaa. Fahriyo muddo waqtiya ayaa ay qarsoontay ku jeeskii kadib. dhammaan dadkuna waxay u maleeyeen inay iska casishay si abadiyan ah, maadaama ay weyday bay dhaheen quruxdeeda iyo soo jiidashadeedii. balse bilo dhowr ah kadib ayay jamaahiirtii kadis ku arkeen iyadoo oo wax jiristii ku soo laabatay.
iyada oo dhuuban oo dhilan aadna u qurux badan. waxayna ku guulaysatay inay aamusiso afka kuwii xasadka iyo xiqdiga ku taagayay. waxayna sheegtay in ninkeedu uusan u diidin inay fanka jilniinka ka shaqaysato, waxa uuna ahaabay tiri qofkii koowaad ee igu dhiirigeliya in aan ku laabto daraamada Turkiga mar kale. mar dambe waxay la xafladaysteen wiilkooda yar sanad guuradii 5aad ee ka soo wareegtay guurkooda. Borakna waxa uu soo qoray kelmado aad u dabacsan oo uu ku muujinayo jacaylka weyn ee uu hayo xaaskiisa. maalinkii ay magacyadeenu isku darsameen waa maalinka ugu farxadda badan ayaamihii aan noolaa oo dhan. qofka ku jeceli waxa uu kugu difaacayaa noloshiisa, waxa uuna noqonayaa ciidanka kaliya ee aad haysatid marka caalamka oo idil ka dhaqaajiyo. si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe, like, follow iyo share. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabadgelyo. salaam markasta.